سلمى وايد بتي إنا لله وإنا إليه راجعون بل سإسبتال كي أي كترتي أي فامل كي سلمى سيدان وهرتورين وحنا كترتا أرين لا يابله وحنا ربعنا كاتب جيو إسبتال كوين إيه هرجيسة ودلي محمد يا سلمى أو هاي دتك إسكوب جبي مجال هرجيسة شعيلك ويلكي سوقات جاس كي يترقى إسلام مركانا جبرنا جوجيدي ويميد كوب البلاي كدمنا دبك إسكولاسي داي واللي بدو أي وذو جبتين كدب إسبتال كاللولا عرري ويلكي واو دنتا لما مالين كهر gabadhiina xilligan ay idin hadlaayo saacado ka hor ay geeriyootay balse xog kale ayaa ka soo baxaysa oo loo haysto isbitaalkii gabadhan la geliyay iyo wiilka isla markaana familkii wiilka iyo gabadhaba isbitaalkii ay hortubayeen hadaba Allah u naxariista Salmo waa inaga hoosaysaa waxa ay ahayd gabar aad u qurux badan halkan gabadha idinkaga muuqata aadka u quruxda badan dhadhalaalaysa hadda gabadha soo baxaysay ahayd 20 sano jirtay ninkani inta isku biimeeyay oo nafteedii u qoonsaday oo gubay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u naxariisto qaybta commentiga ugu soo ducay hadaba Salmo xaalad halis ah ay la kulantay adduunkana waa lagu cadaabay aakhiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto balse gabadhaasi waxay xanuun ah asagu ninku waaba u qasday inuu isgubo asagu waaba u qasday gabar masaakiin ah oo aan filanaynin inay isgubto oo nolosha ay dunida uga tagayday aan filanaynin dab lagu sii daayay Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka xanuun waa ay ku aragtay aakhiraha u naxariisto taariikhda Soomaaliya kama dhicin wali wiil iyo gabarta isgubay sidaan oo kale labadoodiba nafti waayay marka tan waa qisadii ugu xanuunka badneed taariikhda intaan ogahay oo gudaha Soomaaliya ka dhacda wiilkan iyo gabadhan waxay ka soo jeedaan isaaq laba jufo oo kamid ah ay ka soo kala jeedaan wiilku gabadha waa uu jeclaaday kadib markii gabadha uu wiilku jeclaadana waxa uu ku arkay wiil kale oo uga masiirsiinayso asaga iyadoo oo waqti la qaadanaysa gaarin ay iskula jiraan isla markaana daanka ay ka shuminayso sawirkan aad u jeedaan oo ay daanka ka shuminayso kadibna wiilkani waxa uu qaatay go'aan inuu gabadhan uu isku daldalo isla markaana asagu naftiisa uu biimeeyo ayadana uu adduunka ka wado taasi waa ay u rumowday oo labadoodiba adduunka waa ay ka tageen isbitaalkii la geeyay wiilkan iyo gabadhan ayaa waxa ka taagan hadeertaan hadal haynta ugu badan ee magaalada Hargeysa ama sidoo kale Soomaaliland guud ahaan isbitaalkii wiilkan oo lugihiisa ku soconaya iyo gabadha oo lugaheeda ku soconayda ayaa la geeyay isbitaalka markii hore saacado caadi ahaayeen dad caadi oo sheekeynaya oo gabadhu xataa ay ka sheekeynaysa qaabkii loo gubay isla markaana ay leedahay iga ilaaliya ninka daawo muuqaalka ninka iga ilaaliya iyadoo oo dhahaysa oo lugaheeda ku socota ayaa ambulance la saaray kadibna isbitaalka weyn ee Hargeysa ayaa la geeyay wiilkuna sidoo kale waa uu soconayo oo labadiisa lugood ayuu ku soconayay waxaana ka arkaysaa muuqaalkiisa halkan ku galaya isla markaana isbitaalka xataa lugtiisa ku aadi kara balse waxaa dhacday wiilkii iyo gabadhii markii meesha la geeyay in lagu duray cirbada qaldan taagtaaga ugu weyn ayaa hadeertaan Hargeysa ka jira waxayna iska wareysanaysaa dawladdu familkii wiilka iyo gabadhaba waxa ay eersanayaan ama sidoo kale ay eeda saarayaan isbitaalkii ay ku jireen wiilka iyo gabadhaba wiilku 2 maalin ka hor ayuu dhintay waxaa soo hadlay familkiisa qayb kamid ah waxayna dhaheen wiilkanagii isbitaalka ayaa dilay cirbad qaldan ayaa lagu duray iyo sidoo kale familka gabadha ayaa ka dambeeyay in wiilkanagu dhinto hadalladaasi ay isla dhex wareegayeen familka wiilka kadib warkii waa soo ilaaday kadibna waxay dhaheen markii wiilkoodu soo duugteen Salmo anaga ayaa isbitaalka uga warqabayna isbitaalkana anaga ayaa ku ogaahayna haddii ay dhimatana oo tii alla ay ku timaadana waana ku wada macaamilayna oo deediyo iyo waxaas baa la kala qaadanaya okay baa la yiri meeshii baa warkii lagu xiray kadibna Salmo la tacaalideedii ayaa xaaladu ahayd Salmo saacada kadib markii ay dhimatay xaaladii waa ay isbedeshay oo jawigii ahaay wiilkii waa la dilay ama sidaas waa la bedelay isbitaalkii ayaa lagu soo jeestay waxayna u badan tahay 100% oo xaqiiqad Soomaaliland aan ka wacay xaqiijinayaan
in isbitaalka uu dilay wiilka iyo gabadhaba. haddaba markii laga soo tago xanuunka qisada ay leedahay oo ah wiil inuu gabar curdin ah ee aan weli guursanin ee masaakiin ah ay da'da 20 ku jirtay ee sidaa dhabankeeda u dhalaalayo inuu gubo, markii laga soo tago haddana Soomaaliya wax cadaalad ah ama sidoo kale wax dhaqaatiir ah ma joogan. qof aan hal shay sidan oo intuu guriga la gubtay ba wixii oo dambiye laga roganayo laga sheegayo wixii waxa la afka hadii xaq afka la qabto dadkii ogaayay meesha goobjoogka ay afka qabteen feeru ka jalaacaya insha Allah ana iska soo baxaysa wuxuu ma qarsoonaan kale weligii ma qarsoomo. Ilaahay ba qof laba qof oo isdilay oo midi dhintay kii kalena baxsaday oo cadaalad iyo cadeyn midna lagu helin ba Ilaahay soo kashifa. marka insha Allah xaq maalin unbu iman doona afka oo loogaan doona wixii jiray isagoo 100% gubtay oo maskaxdiisu gubatay oo jirkiisu dhintay. ba maalin walba waxaan arkaynaa qof oranaya waa been waxba ma qabo waa anagoo og hada inuu isagu yani nolosha naftu laga eegayo. alxamdulillah alshukri ilaahay tiisi maanta wataasa xaqa ilaahaygi caadilka cadaaladda ogaaba wuxuu og yahay halka wixii ka dhacay. ilaahay gabadhana ha boogadhayo dabku cidii yar haduu ka soo gaaro waa dab weeyaan. saacadiisa baa dhamaatay inta adduunyada uga eekayd ilaahay baa ka kala khafiifiyo wallahi waxaan isleeyahay waxba kuma noolaadan xitaa haduu noolaado ilaahay ha u dambi dhaafo dambigiisa dambigi waalidkii baa Allah dhaafo saacadiisa baa dhamaatay. waxaan ado social media waa been fakataguna ma gaadho weeyaan. ilaahu naxariisto xaqana Allah soo saaro maalin kamida xaqu afka si kasto loo qabto feeruhu ka dilaacaya. harun inuu isagu dabku ku horeeyay way waxa la leeyahay waxbuu gubay isaga dabku ku horeeyay. haddaba haddii aad tahay reer Hargeysa muuqaalkani waa kugu amaana ama reer Somaliland jamhuuriyadda barakeysan aad ka soo jeedo fadlan muuqaalka la wadaag dawladda Somaliland si ay isbitaalkaasi si degdeg ah uga gaaraan isla markaana lagala hadlo ama lagala macaamilo gabadhan cirbadihi ay ku dureen ama sidoo kale wiilka cirbadihi ay ku dureen si lagala hadlo muuqaalka like na saar sina share garay qaybta commentigana ugu soo ducay wiilka iyo gabadha. haddaba saaxiibayaalow qisada ka dhacaysa Soomaaliya ama hadeertan baraha bulshada waqtiyadii ugu dambeysay Soomaalida dhexdeeda qisada ka jirta ama arrimaha ka socda waa arrimo aad u xanuun badan. hadda labadii isbuuc ee ugu dambeysay social media Soomaalida waxa haystay macallin ilmo kufsaday ee hooyadoodna qabay gabar 12 cunug looga dhalay xamar inta la qabto la xirxirtay oo 24 keeda sala sugu xirxiray ba afar waxa laga dhalay 12